السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وعسكري عيسى كمنا على الحلباوي وحن ربا إن نكهدو مانتا لايف أناليسيس عن ربا أسبوع عن فرصتها الجلود مراجعة لنا خصوصا إن شاء الله تعالى haddii aan ku bilaabo suuqan wiigii hore alxamdulilah wiigii hore waa aad iyo aad u fiican profit fiicanna leh our teamka aan sameynay good profit kaasoo aan kusoo update garaynayay more signals oo my groupkiga ah insha allahu tacaala haddii aad u baahan tahay signalo sidaas oo kale ah waxaad ka heli doontaa descriptionka baan kugu reebi doonaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala groupka kusoo biir si free ah insha allahu tacaala aan ku bilaabo BAMUSD BAM isbuucyadii hore aad iyo aad buu u kacsanay kaasoo wax badan kor aaday balse wiigii haddii lasoo dhaafay wuxuu sameynayay soo laabasho fiican markii aad iyo aad loo fiiriyo isbuucii kasii horeeyey isbuucii hadda alxamdulilah BAM haddii aan fiirino iyo fursadda hadda ka jirta wiigaan soo socoto markii laisku barbar dhigo wiigaan hadda soo socda wiig aad iyo aad u fiican kaasoo ah waxaa jira news ku saabsan BAMka kaasoo lagu codeyn doono Brexit dealkii inuu jiro iyo inuu jiri doono hadduu alla insha allah kaasoo wax badan ka bedeli doono qiimahan BAMka balse as technical ahaan haddii aan fiirino BAMka wuxuu ku jiray uptrendgaas oo haystay laga bilaabo bishii 12 markii la fiiriyo oo kasoo bilaabmay ilaa uu ku tegay bishii 27 kaasoo ah 12 maalin oo kor u socda qiimihi balse 27 ilaa maanta oo la joogo bishii 8 suuq ma kor xirmaday ilaa hadda uu dhicitaan uu wado soo marka intaas markii aan fiirino waxaa kasoo bixi doona fursadda maalmaha soo socda iyo weejida soo socda suuqa sidoo noqon doona markaas ku dhaqaaqo uptrending uu haystay waa kana support here soo qiimihii waxaad aragtaa in mar kale supporting uu sameeyay laakiin uusan meel dheer u aadin oo qiimihii uu la soo celiyay kadib uu sameeyay breakout oo ah trendkii uu haystay so trendkii maadaama uu soo jibiyay here waa inuu mar kale trendkii agaarihiisa uu ku laabtaa ama meel u dhow after that uu qiimihii si clear oo ku tusiya inuu soo dhici doono waan soo update gareeyay signal intii kaasoo aan pips yar ka qabanay wiigii hore maadaama aan xaqiiqsaday qiimaha eridan inuu ka laaban karo mar kale sidaas darteed qiimihii waa uu dhacay waxaan arki kartaa isbuucan waxaa la rajeynayaa insha allahu tacaala supportigan oo ah qiimo mar hore resistance ahay inuu jibiyey resistance kadib uu si direct u jibiyey aad aragto si direct hadda inuu support uga dhigan doono insha allahu tacaala laba mid baa u furan qiimahan hadda sidaan joogo tomorrow monday suuqa ku furi karaa number 1 qiimaha inuu eridan moving average-ka uu markale soo taabto balse uu dhammaystiro eridan haddii isbuucan dhexdiisa 12 March codeynta dhici doonta haddii ay kusoo gabagabowdo in si direct uga baxaan then waxaa waaye BAMka wax badan baa isbedeli doona kaasoo noqon doono fundamentalka haddii accept la yirahdo BAMka oo duuli doona uu socon doona laakiin haddii rejection la siiyo that means qiimaha uu soo hoos u sii dhici doona ilaa meel hoose u tegi kara oo ay tahay eridii hore oo kasoo dhacay insha allahu tacaala mid kale waan samayn karnaa oo ah trendkan oo hadda haysto waa isku fiirin karaa maadaama aad aragto uptrend 1 here support here kaasoo hadda uu ka laaban karo mar kale aad aragto 4 hourska 1 hourka haddii aan gelin sidoo kale uu cuskaday uu isku dayay inuu ka laabto opportunitygaasna waa ay banaan tahay waan ku dhahay qiimaha uu samayn karaa in moving average-kan ilaa eridan resistance-ga u tago insha allahu tacaala eridan insha allah BAMUSD isaga fursadiisa waa sidaas
waxaa kaloo ka mid ah euro USD oo ku xiran dollarka. Last Friday the net February wuxuu ahay negative, kaasoo ka caawin doona lacagaha kale uu ka soo horjeeda inay bullish ay noqdaan oo ah pullback ay sameeyaan. Euro USD haddaad aragto as technical ahaan wuxuu ku jiraa downtrend kaas oo ah support here, support here, support here, markii afraad support here, resistance, resistance, resistance. So qiimahan laba mid baa hadda u furan inuu sameeyo daily markii la fiiriyo. Daily haddii la fiiriyo waa bullish candle oo sidaad aragtaba. The next day oo ah tomorrow Monday qiimaha iridan buu ku furi doonaa oo ah in qiimaha ku kursi doona. Laakiin mid buu ku aadi doonaa haddii la fiiriyo si clear horta waad aragtaa support inuu cuskaday downtrend uu ku jiray, laakiin waxaad aragtaa saacadaha yarka in la soo celin doono. Sidee marka aan u qaadan karaa entry ah good entry euro USD sidee u qaadan karaa? haddii aan aragno afarta saac waxaad aragtaa resistance here maadaama uu soo jibiyey meeshaan uu soo jibiyey support ahaan oo aan ka dhiganahay, laakiin uu soo jibiyey hadda waxaan dhihi karnaa waa resistance. iridan haddii aan fiirino waa resistance oo hadda aad aragto in la soo celiyey. saacadaha yaryarka haddii aan geeno waa kana waa la soo celinaya, uu dhaafila ayaa meeshaan. balse mar allaale markuu meeshaan dhaafo waxaan isku diyaarinaynaa targetkeenu inuu yahay 1.1381, balse entry waxaa ku qaadan kartaa inuu soo laabto iridan oo ku imaado 1196 ilaa 1195. after that pullback uu sameynayo waan rajeynaa insha allahu tacaala inaan good entry aan ka qaado iridan oo kale mar kale markuu meeshaan taabto waan rawaanaya insha allahu tacaala. So euro USD is clear or downtrend, balse waxaan sugnaa leg kale oo inta soo daadan doono kadib baan soo gelin doonaa iyo baayihiisa inta insha allahu tacaala oo gurubkeena. haddii aan fiirino dahabka isagana sidoo kale it's a good opportunity weekend kaas oo weekend la soo dhaafay alxamdulillah aan ka qabanay waxyo faa'iidaha aan qabnay, balse dad qaarkood ay ka qabteen good profit kaas oo aan kusoo bandhigay groupka iyo meelo badan. haddii aan aragno range yar buu ku jiraa meeshaan uu ku jiray qiimahan allahu mustacaan gold oo ah rangegaas yarka uu ku jiray. rangigii maadaama uu ka baxay waxaad aragtaa si clear ah in uu sameeyey pullback, balse ma noqon doono mid aad iyo aad u dhaqaaqo hadduu alla idmo kaasoo meel dheer ku tago. haddii aan fiirino saacadaha yaryarka waxaad aragtaa in saacadda weyn haddii aan ka bilaabo saacadaha yaryarka waxaad aragtaa inaan aragno meelo badan oo ka mid tahay in laga soo celin doono iridan 1.304 laga soo celin karo 1.312 ilaa 10 iridan ah qiimaha in laga soo celin doono. after that uu samayn doono downtrend fiican oo ah ilaa iridan meeshaan oo kale markii laga soo celiyo 1.308 ilaa iridan oo imaan doono one more leg oo qaybtan oo kasoo hoosmari doono insha allahu tacaala uu tegi doono 1.266 kadib buu isku dayi doonaa inuu duulo dahabka hadduu alla insha allahu tacaala, balse isaga weli clear ma aha. short term buu ku fiican yahay waqtiyo yaryar isagana soo update gelin doonaa insha allah. haddii aan fiirino USD CAD haddii aan fiirino Canadianka Friday wuxuu ahaa positive, dollarkin wuxuu ahaa negative, kaasoo ka caawin doona USD CAD inuu noqdo more bearish ama wax fiican u soo dhaco. afarta saac haddii aan aragno ama daily haddii aan ku bilaabno waxaan aragnaa area inay tahay area resistance maadaama ay tahay qiimaha wax yar waxaa samayn doona maadaama meeshaan uu sameeyey breakout uu ku sameeyey wuxuu ku samayn doonaa support. after that uu isku dayi doonaa marka inta imaado 1.3330 ilaa 70 inuu qiimahan ka duulo insha allahu tacaala, balse already anaga Friday
profit yar waan ka qabanay balse Monday-da wuxuu sameyn doonaa inuu area-dan ku laabto 50 ilaa area-dan after that si clear ah uu u tegi doonaa insha Allah ta'ala 1.3330 waan soo update garan doonaa isaga insha Allah ta'ala signalskiisa waxa ka mid ah EURJPY isagana haddii aan fiirino daily time frame ka haddii aan ka soo bilaabno daily time frame ka haddii aan ka soo bilaabno waxaad aragtaa horta inuu ku jiro uptrend inuu ku jiro uptrending uu ku jiray qiimaha waa la soo celiyay area-dan rejection uptrending fake breakout yar buu sameeyay balse still clear ma ahan maadaama qiimaha in la celin doono in kale balse waan arki doonaa siduu u noqdo laba mid baa u furan EURJPY last Friday sidoo kale isagana waxaan soo bandhignay one more signal oo ah EURJPY kaasoo faa'iido aan ka qabanay oo ah sababtoo ah area-dan aan aragno waa area support area kaasoo oo noqon doono area short term laga faa'iidi karo few pips alxamdulillah sidii aan ugu talagalnay qiimaha waa u aaday balse hadda waxaan sugaynaa another entry oo ah buy or perish balse waxay u badan tahay EURJPY inuu wax badan oo sii dhici doono balse mid buu samayn karaa maadaama area-dan support area uu yahay intana fake breakout uu sameeyey waxaan sugnaaba inuu si clear u caddeeyo in qiimaha down uu ku sameeyo oo ka hoos maro area-dan ama in qiimaha si clear leh inuu meeshaan uga kaco ilaa area-dan aan ka gaarno 1.2587 oo qiimaha uu tegi karo insha allahu tacaala waan soo update garan doonaa isagana waxaa kaloo ka mid ah pound New Zealand isagana opportunity-ga ka jirto haddii aan fiirino pound sida weekend oo lagu filayo waxaa jiro codeyntan uu soo sheegay uptrend buu haystaa abkaasoo ah supportiga kale ku xiga oo ah 1.8908 oo ah another support ama another target ah area-dan qofkii meelahan ka soo galay oo meesha uu targetkiisu u yahay balse entry sidee baan u qaataa qofkii aanan markaas loo qaadanin so waxaa jiro more chance oo qofku uu ku fiirin karo pound New Zealand fursadaha ka jiro waxaa ka mid ah area-dan waxaad aragtaa in laga soo celiyey area-dan fake breakout oo dhowr jeer laga soo celiyey qiimahan wuxuu samayn doonaa another leg oo ah bearish area-dan buu tegi doonaa balse waa very high risk waxaan sugaynaa short termka dadka ah laba mid bay samayn karaan inay ku sugaan area-dan 1.8908 ilaa 05 supportigan lugtan markuu cuskado iyo in supportigan kale uu cuskado 1.8943 uu cuskado kadib wax yar inta uu soo jebinayo oo qaato short term area ama scalping yar inuu qaato oo faa'iido yar uu ka qabto after that qiimaha uu iska dhamaystirto ama inuu sameeyo in qiimaha area-dan lagu celiyo 1.9293 ilaa area-dan 1.9244 after that oo qiimaha lugtan oo sell fiican uu ka soo qaato intaas buu furan tahay chances insha Allah ta'ala waan soo update garin doonaa so waxaan oo balan ah next video iyo fursadahan insha Allah ta'ala iyo our signal feel good insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subscribe like share and comment